guriga iibsanayso waa the biggest financial decision you'll ever make. Hal qalad oo samaysay wax kugu cost garin doona 10,000, 20,000 or even $50,000. That's why exactly aan u sameynay wax loo yaqaan the 7-step home buying blueprint. Processkan dad badan waxa maray ibn boqolaal qof oo Somali oo guriga iibsatay halkan ayagoo guriga ku iibsanayo si kalsooniya kana hortagay qaladaha waaweyn ee sameeyaan. Haddii serious ka tahay inaad guriga iibsato rabto guriga iska gado waxa naga soo wacdaa numberkan halkan ka arkayso ama bugarayso consultation the link in my bio. Now aan ku sharaxo the exactly formula aan isticmaalno every home owner aragti guri iskala amarsiina ku tusayna maanta. Step 1 ka bilaabina. Step 1 waxa loo yaqaan build the blueprint. So intaan guriga showing ku bilaabno ka hor waan fadhiisanayna waxaan ku siinaa wax loo yaqaan game plan qorshe ku siinayna. Qorshahaas oo kamid ah budget kaadi iyo monthly payment adiga awooda maaha mid xalima awooda maaha timeline ka waqtiga haysato iyo wax loo yaqaan must haves oo adiga gurigaasi nooc arabtuna ku noqdaa darabto guri 4 bedroom 3 bathroom square footage everything adiga saarabto iyo waxyaalaha loo yaqaan non negotiables waxyaalaha qaar ay ka heshiin karin laakiin inuu guriga ku hada qasab ay tahay hadda maanta guriga 1 million dhisan lahayd gurigaasi ma dhisateen without blueprint sagoo lahayn nashqadii loo dhis lahaa gurigaasi of course da guriga iibsanaysana waa lamid maadaama uu wax kugu qaalisan aad wadanka iibsanayso step 2 waa get financial ready so dadka badan waxay isweydiinayaan guriga misaan awooda laakiin su'aashaasi inaad isweydiiso waxa ka fiican su'aasha markaas adiga inaad isweydiiso guri misaan awooda bishan lacagta aad iska bixin karo anigoo noqonin wax loo yaqaan house pool aan kugu xiri doonaa dadka naga aaminsanahay oo lenderka oo bangiyada ah loan option kaadina ogaato hadaa rabto Islamic bank hadaa rabto conventional loan caadi rabto iyo financial diyaar u soo noqoto inaad guriga iibsan karto intaan offer ka sameyn ka hor step 3 hadda guriga saxdana ku soo helno mostly dadku wax ka bilaabaan zillow inay guriga ka arkaan oo $600,000-700,000 inta even la soo approve garan ka hor laakiin of course guriga waa nala wadaagi doontaa laakiin waxaan ku sameyn doonaa wax loo yaqaan custom search oo guriga inaan ku soo galaan lirada markay suuq saa u soo galaan right away ka soo galaan adigana waa nala wadaagi kara group text message oo sameynaya guriga ku wadaagayna like the zillow ka arto realtor ama truliahomes.com anyway ka arto waa nala soo wadaagi kartaa so anaga inaan guriga ku soo helna maaha ay ujeedada waxa tahay inaan guriga saxda ku soo helno step 4 waa protecting you from buying the wrong house inaad guriga qaldan iibsato san ugu hortagno so marka qaar markii aan showing dadku sameynayno mostly dadku waxay jeclaanayaan guriga paint colorkiisu jeclaanayaan iyo wax loo yaqaan countertops jikada ay ka helayaan iyo light fixture waxyaasha loo yaqaan like mostly waxyaalahaasi ma eegayno waxaan fiirino waxyaalaha ku kacayso thousands of dollars lacag ka kacayso mainly waxaan focus gareynaa waxyaalahaas kamid ah number 1 waa roofka foundationka faniska electric systemka iyo windowska waa those 5 items oo loo yaqaan high ticket items oo waxyaalaha lacag badan ku kacaysa guriga hadda paint u baahan yahay waa paint karsan kar haduu adigu lacag isticmaal even adiga gacanta ku paint karsan karto laakiin replacement kuma sameyn kartid wax loo yaqaan foundationka adigu isticmaalay $200 $300 kuma sameyn kartid so that's why foundationka $40,000 ku kacaysa $50,000 so that's why iga xaqiijina step 5 negotiate like a professional so gurigana soo hesho that's the first half the battle why waa qayb kamid ah like now negotiation uu dhaco why the negotiation case especially Sahan Realty team well all of them were certified why so that means hadii waxyaalaha negotiation ku sameyn kamid ah price ki guriga qiimihiisa repairs dayactir u jiro closing cost-ki in exhaustion inspection items ki iyo deadline ki waqtiga la gabagabin lahaa guriga so qofka haduu yahay great negotiator wuxuu ku save garanaya thousands and thousands of dollars ku save garan lacag step 6 waxaan manage garanayna every detail oo process ka dhan gabiyaantiisa dhan gabagabeynayna so that means once an offer accept garayso real waxa bilaabanaysa gurigi home inspection ki already soo maray appraisal kina kugu xirno lenderka most likely soo diri doono appraisal kaas guriga qiimaha saxda la soo ogaanaya financing ki waxyaasha details qodii lagaga baahan yahay inaan ka xaqiijino inaan title company kugu xiro oo I want to make sure that guriga iibsana title kiisa inuu clear yahay insurance company anaga aan la affiliate aan kugu xiri doona ama ku darsanaysa darabto adiga dalada gurigaada bundle la samaysanaysa iyo waxaan ku sameynaa wax loo yaqaan final walk through so the whole entire process can was very smooth oo noqonaya step 7 waa closing and lifetime support closing ka ma aha inuu dham halka ka kala tagayn guriga waa dhameysay buy ma aha anaga markaan furaha ku siino of course oo kula dabaaldegaynaa adiga qoyskaada this waa milestone waaye oo qoyskiin u tahay laakiin waan ku caawinaa marka even closing uu dhamaad kor waxaan kugu xiri doonaa wax loo yaqaan trusted contracts aan kugu xiri doonaa wax loo yaqaan home ownership advice aan ku siin doonaa iyo wealth building strategies oo strategy guriga ku dhisan kartaa the special ta ku soo birto wax loo yaqaan fast mortgage freedom waxaan ku siinaynaa like literally process dadka isticmaalayaan the same people adiga kala 5 to 7 years mortgage ka soo ugu baabxinayaan hanti dhibna oo sameysana ku tusaynaa because ujeedadana ma inaan anaga guri adiga ka iibina bas ee kaliya waxaan rabnaa guriga inaad u isticmaasho oo ku noqdo hanti inuu qoyskiina u sameeyo qaladka dad badan ay sameeyaan kaliya bas ma inay guri khaldan iibsadaan maaha inay waxay kaligood inay sameeyaan isku dayaan process kadina kaligood maraan hadda ku fikiraysid guriga inay iibsato ama guriga iska sii gado Mansoor ku nooshahay numberka naga soo wac ama waxa ku comment ugu soo qortaa blueprint hadda Mansoor ku nooshaana link aan ku soo diri doonaa linkaasi waxaad sameyn doontaa consultation ayaa ka samaysan kartaa xagaasi the whole entire process kan mareen boqolaal qof oo Soomaaliya adigoo kala ayaan ku marsiinay the same process aan ku marsiinay ay guriga ku iibsadeen inshallah inta tagaya assalamu alaykum